maamulka Puntland ayaa wali gacanta ku haya markabka oo lagu magacaabo Sea Award kaasoo ka soo shiracday dalka Azerbaijan isla markaana xeebaha Puntland gaar ahaan xeebta Bareeda ay maalinkii shalay gacanta ay ku dhigaan ciidamada gaarka ee badda ee Puntland ee PMBF waxa jira dadaalo dheer ay xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya xilligan ay ku bixinayso sida ay markabkan ugu soo furan lahayd maamulka Puntland oo haatan si rasmi ah gacanta ugu haya dadaal dheer oo ay bixisay xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la haatan si rasmi ah loogu guuleysan sida lagu guuleysan in dawladda federaalka Soomaaliya xilliga markabkaasi ay ka soo furato dawlad goboleedka Puntland wada hadal dheer oo dhaxmaray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana noqon mid dhala wada hadalkaasi ayaa gabi ahaanba la isku afgaran in xukuumadda maamulka Puntland ay xilligan sii deyso isla markaana ay fasaxdo markabkan oo sida shixnad hub oo aad u tiro badan isla markaana u socday dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya dalka Turkiga oo markabkan laga leeyahay ee lahaatan iyaguna kama aysan hadlin markabka lagu qabtay xeebaha Puntland gaar ahaan xeebta Bareedo waxaana markabku wali oo haatan jooga magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland halkaas oo ammaankiisa markabka ay sugayaan ciidamada kala duwan ee badda ee PMBF ee Puntland oo horey markabkaasi gacanta ugu dhigay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo sidoo kale laamaha kala duwan ee ammaanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada PMBF kama aysan hadlin waxyaabaha rasmiga oo wada markabkan waxa goor dhaweed la filayaa baa in warbaahinta uu la hadlo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Puntland Caytiid isla markaana oo shadiid waxa uu sheegi doonaa baa in uu ka hadlo markabkan waxa uu siday sidoo kale meesha uu socday iyo sidoo kale cidda uu wada hubkaasi baaritaano kala duwan ayay wada maamulka Puntland wadaan xilligan ku aadan cidda iskala markabkan ilaa la ogaaday sidoo kale cidda uu wada shixnadan hubka inaan markabkan oo aysan gacanta maamulka Puntland oo ka baxaynin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ilaa haatan kama dhaxeeyay wax cilaaqaad tan iyo markii xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya uu qabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligan ayaad moodaa in Puntland ay chance halkaas ka heshay maadaama ay hub aad u tiro badan oo saxnada ay sidoo hubkaas oo siday markab laga leeyahay dalka Turkiga xilligan gacanta ay ku dhigtay isla markaana dadaalada iyo sidoo kale hadalada kala duwan ee ka soo baxaya xukuumadda federaalka ee Soomaaliya dhag jalaq uma aysan maamulka Puntland oo hogaamiya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane waxaa si rasmi ah loo sugayaa hadalka ka soo yeeri doona wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Puntland Mr. Caytiid oo ku aadan in uu ka hadlo shixnada kala duwan ee markabkaasi siday iyo sidoo kale cidda iska lahayd markabkaasi haatan gacanta sida rasmiga ugu galay maamulka Puntland gaar ahaan xukuumadda Puntland oo hogaamiya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane aynu eegno magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC waxa wali ka socda dadaalo waaweyn oo lagu doonayo dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo beelaha qaar ayaad moodaa xilligan inay qaadaceen dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo beesha faqashin oo kamid ah beelaha deegaanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa gabi ahaanba maanta warbaahinta la hadlay waxayna ay sheegeen inay gabi ahaanba si rasmi ah ay u qaadaceen shirka dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo isla markaana waxay gabi ahaanba ay ka biyadiideen xubnaha gudida loo saaray oo ay sheegeen in gudida hadda la saaray aysan gudi ku filan beesha faqashin oo kamid ah beelaha deegaanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa wali ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadaalo waaweyn oo lagu doonayo dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo waxaana beeshan ay kamid tahay beelaha deegaanka gobolada SSC Khaatumo isla markaana si rasmi ah waxay u dhaleeceeyeen gudida soo xulista gudida iyagoo sheegay gudida la siiyay in xilligan aysan u qalmin isla markaana ay filayaan in gudi ka badan xilligaas la siiyo waxa ay sheegeen inay gabi ahaanba ay ka tanaasuleen isla markaana ay diideen ay ka biyadiideen gudidan iyaga gaarka loogu xulay isla markaana u noqonaysa gudida beesha faqashini waxay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha faqashini oo shirxafadeed ku qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay sheegeen inaysan gabi ahaanba ka mid noqon doonin ergooyinka ka qayb gali doona shirka dhamaystirka maamulka SSC Khaatumo ee dhawaan ka furmi doona magaalada Laascaanood ee xarunta